والله موقال كاسد أيو ليتي وقالوا طه فورهم كينغ كل شيء ده بيجي حتى صبرني وقال لي جد وسطي أو أنت طبعا مش ذي بقى بني لقرب مركان مين بدك فترة بوحي مين برهوش بقى بوحي يعني ما يكرم وحوي النفاق ما لا مفتحتها دلوقتي يا فرن بيجن نقول مدن أبد رسالة هرجيسة dagaaladii dib u xoreynta dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddo dheer soo jiitamayay waxay aakhirkii noqdeen dagaalo wiiqa awoodii ciidan ee taliskii Maxamed Siyaad Barre ciidamadii halgankii hubaysnaayay SNM oo muddo dheer ka dagaalamayay duleedka magaalooyinka waaweyn ee caasimadu ay ka mid tahay waxay 27 iyo 31 bishii May ee 1988 ay soo galeen gudaha magaalada Hargeysa iyo Burco oo waqtigaasi ay ku sugnaayeen saanad military oo aad u tiro badan oo isugu jira saanadaha dagaalka ee cirka iyo dhulkaba loo adeegsado iyo sidoo kale ciidamo tiro badan oo ka mid ahaa ciidamadii rajiimkii Maxamed Siyaad Barre oo ahaa kuwii ugu talagalay xilligaasi in ay fuliyaan amaawiirta xasuuqa gumaadka iyo baabinta ummadda reer Soomaaliland halgamayaashii SNM markii ay gudaha u soo galeen magaalada Hargeysa waxay ciidamadii cadawga ku abuureen jahawareer dagaal oo kaliftay in cadawgu uu noqdo mid ku asqooba xeeradii dagaal ee xilligaasi ka bilaabantay gudaha Hargeysa iyo Burco oo kalifay in ciidamadii cadawgu ay duqeyn cir iyo dhul ah ku baabiyaan xaafadaha ay ku nool yihiin shacabka aan waxba galabsan taasi oo dad badan ay ku dhinteen kadib markii muddo badan dagaalku u socday cadawguna soo galay magaalada waxaa kalifay in madaafiic aan isticmaalno waxay ahayd cadawgiioo sidoo kale waxa ciidamadii cadawgu ay hubkii ay gacanta ku hayeen u adeegsadeen inay ku baabiyaan hantidii kala duwanayd ee shacabkii ku noolaa magaalooyinka Hargeysa iyo Burco waxaana diyaaradaha dagaalka ee dawladii Maxamed Siyaad Barre ay magaalada Hargeysa ka dhigeen meel gabi ahaanba laga guuray oo gabaahira
iyadoo arrintaasina ka liftay in shacabkii ku noolaa Hargeysa iyo Burco waxay u dalandooleen xeryihii qaxoontiga ee ku yaalay waddankaasi Itoobiya oo ay ku noolaayeen tan iyo intii dalka dib loo xoreynayay. Noloshii adkayd iyo duruuftii xilligaasi waxay ahayd mid dhab ahaan adkayd oo ku adkayd nolosha bulshada reer Somaliland, waxaana inooga warramaysa mid ka mid ah hooyooyinkii xilligaasi ku sugnayd xerada qaxoontiga ee Dulcad. aad bay daw ugu dhimaysaa qof shaqaysan jiray oo raaxaysan jiray markuu gacan bariyo uu tago dawr aad bay daw u dhintay. marka noloshii horeen ku noolaan jirnay ee nolosha imka isku mid maaha, wax weyn baa u dhaxeeyay. qof shaqaystay oo nolol wanaagsan ku soo noolaa markuu la kulmo bariyo nusqaan weyn iyo dhibaato weyn ayaa haysata. waxaan dareemayaa dadku markii hore aan gacanta ku hayay dad wax aan baray oo tacliin bartay oo baxayay oo nidaam leh oo fiican bay haayeen. intii aanu dibadda u soo baxnay dadkii waxay noqdeen imka isku mid maaha, wax weyn baa u dhaxeeyay. qof shaqaystay oo nolol wanaagsan ku soo noolaa markuu la kulmo bariyo nusqaan weyn iyo dhibaato weyn ayaa haysata. waxaan dareemayaa dadku markii hore aan gacanta ku hayay dad wax aan baray oo tacliin bartay oo baxayay oo nidaam leh oo fiican bay haayeen. intii aanu dibadda u soo baxnay dadkii waxay noqdeen wax qaarkood dawr ku dhaqaaqeen markii hore, noloshina aad u daciiftay, sharaftii aad u daciiftay, quruxdoodii aad u daciiftay, waxbarashadoodii aanay jirin, wax ciidanka kolkii dambe ku biireen. wada dhibaatooyin badan ayaa korintoodii dambe 3 sanadood iga qabsatay. hooy la'aan, hula'aan, waxyaabo badan ayaa 3 sanadood dhibaato xoog leh iga soo qabsatay deewdin hayntoodii. si kastaba ha ahaatee dagaalkii ka socday Hargeysa iyo Burco waxa uu aakhirkii noqday mid ay ku guuldarraystaan ciidamadii calooshooda u shaqaystayaasha ahaa ee daacadda u ahaa dowladii kaligii taliye Maxamed Siyaad Barre. waxaana 1991kii lagaga dhawaaqay magaalada Burco madax bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland. dhibaatooyinkii iyo duruufihii soo gaaray magaalooyinka waaweyn waxay ahayd mid gebi ahaanba qof kasta oo xilligaasi garanayay uu la yaabay sida cadaawada leh ee loo burburiyey dhismayaashii iyo hantidii ummadda. biyaha ka dhisan magaalada Hargeysa sida idin muuqata waxay noqdeen kuwa burburay oo ay ka maqan yihiin jiingadii, albaabadii iyo hantidii kale ee dhex taallay. isla waqtigii lagu guulaystay madax bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland ee lagaga dhawaaqay magaalada Burco waxa shacabkii Somaliland ay bilaabeen inay degdeg ugu soo noqdaan dalkoodii hooyo. waxaanad arkaysaan in gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada ay ka soo daadguraynayaan xeryihii qaxoontiga qoysaskii ugu horreeyay ee go'aansaday in ay dalkoodii iyo guryahoodii dib ugu noqdaan. arrimo hore oo haynaya xalku imka sidii yahay waa mid aad u xoog badan oo ma garanaysaa 3 sanadood meesha joognay aad tiiraanyo u leh, aad buu tiiraanyo u leeyahay ama xusuus aanu yani aad buu uga xun yahay hal qoyskan aad arkaysaan waxa uu ku soo noqday amaba uu soo gaaray magaalada Hargeysa iyo gurigii uu ku noolaa ee hantidiisa ahaa. waxaanu la kulmay arrin fajac iyo yaab ku abuurtay kadib markay arkeen in dhammaanba gurigoodii uu noqday mid burbursan oo kala siman guryaha kale ee shacabka Somaliland ee ku yaalay magaalada Hargeysa. isla waqtigaasiba shacabka Somaliland waxay bilaabeen inay dib u dhis ku sameeyaan intii awoodooda ah dhismayaashoodii iyo hoygoodii. waxay ku xidheen baleeri miina maalintii fujinayeen miinay ku xidheen
ها هلا حسوا جوين ولا أنت مينا كحرنا بدنا مينا ده نيلك هو ما كحسوا جوسنا يعني الله يرحمه ما تيجي يوم ويا ويلا بحرنا هو ندون هاي سكالة إيو قرائد كم قرنا سكوف دي داقادها إيو خيارها كوي اللي بحيين بالك إيو برت الله يرك بدينا وحرين مين هذا وحوي هدموا قولوا سكباب سكباب ويكوا سوتشي مدافع السوق maalintii ay ku soo noqonay ma garanaysaa maalintan ku soo noqonay hore caadi bay u dhisnayeen oo aqalkan ka hurdada meel yar dusha kaga soo dhacday kan hurdada ee dusha xabadeeda kaga soo dhacday waan sidii waxa weeye malaha fiin diyaarada ay xabad qori halkan qonaha kaga soo dhacday in Allah inta kale sideedii bay mar qora madfac ku dhicin jinkadana saanun bay ugu dulqaaday هاي المفروض نقارن ده لوح ولا براءة بهن شنقدو فيه اسمه هذا براءة injineer Rashiid waxa uu ka mid ahaa dadka aqoon-yahanka ah ee xilligaasi ku sugnaa magaalada Hargeysa ee isla markaasina tilmaami kara sidii ay xaaladu ahayd xilligaasi. bismillaahi raxmaani raxiim wallaahi muuqaalkaasi aad ayuu liitay muuqaal wuxuu ahaa fool xun guri jiingad liibuu jirin xataa sabadii waa laga goostay oo inta dab lagu shiday baa beri lagala baxay marka meel walba gudaafada buuxday meel walba rabash baa buuxay lama eegi karin waxa weeye nafahaaga meel aad marto xataa dhibaato yahay hudheelada waxaa la iskaga masaxayay joornaaladii muxuu ahaa dokumentkii dowladda ayaa u ahaa muxuu ahaa maris hudheelada meelaha dee gudaafada ku yaalla dee dadku jiray marka runtaa wax la xusi kara waxaasi mu ahayn runtii wuxuu ahaa aad iyo aad wax looga maro dilaaco oo aad looga murugo ayuu arrinkaasi ahaa furan degan nugul mudun adag isaale hargeysa